wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Daahir Cusmaan ayaa kulan la qaatay wasiirka waxbarashada ee dalka Pakistan mudane injineer Maxamed Urrahmaan. kulankan ay isugu yimaadeen wasiirada waxbarashada ee wadamada Pakistan iyo Soomaaliya ayay uga hadleen iskaashiga labada dal ee dhanka waxbarashada, tayeynta iyo horumarinta tacliinta, iyagoo sidoo kale isla soo qaaday deeqaha waxbarasho ee ay Pakistan siiso Soomaaliya. wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa Pakistan kala hadlay sidii Pakistan ay gacan uga geysan lahayd tayeynta waxbarashada Soomaaliya iyo sidii labada dal ay u samaysan lahaayeen iskaashi xoogan oo dhanka waxbarashada. Dowladda Pakistan ayaa soo dhaweysay dalabka Soomaaliya, waxaana wasiirka waxbarashada Pakistan sheegay in ay diyaar u yihiin in ay Soomaaliya ka caawiyaan dhanka waxbarashada, isagoo sidoo kale sheegay in ay jiraan boqolaal arday Soomaaliyeed kuwaas oo Pakistan ka barta noocyada kala duwan ee cilmiga. Ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata Pakistan ayaa kuwa sumcad wanaagsan ku leh dalkan, waxaana wasiirka waxbarashada Pakistan ammaan u jeeday ardayda Soomaaliyeed, isagoo sidoo kale sheegay in ay jiraan aqoon-yahano Soomaaliyeed oo Pakistan horey wax uga bartay kuwaas oo maanta ka shaqeeya dunida dacaladeeda, taasoo uu sheegay inay sharaf weyn u tahay dowladda Pakistan. Dhanka kale, Soomaaliya waxay xubin ka noqotay markii ugu horeysay guddiga horumarinta sayniska iyo tiknoolajiyadda ee loo soo gaabiyo COMSAT, oo ah guddi ay ku midaysan yihiin 27 dal oo adduunka. 27 dal ee ku midaysan guddigan ayaa isdhaafsada aqoonta dhanka PhD-da iyo masterta, waxayna sidoo kale wadaagaan research centerada ama xarumaha cilmi baarista. heshiiska ay Soomaaliya uga mid noqonayso guddigan ayaa waxaa saxiixay wasiirka waxbarashada Soomaaliya mudane Cabdi Daahir Cusmaan, halka dhanka ururka uu saxiixay madaxa fulinta Maxamed Junay Sayidi. wasiirka waxbarashada Soomaaliya waxaa kulankan ku weheliyay safiirka Soomaaliya ee Islamabad Marwa Khadiija Maxamed Al-Maqsuumi, xogayaha koobaad ee safaaradda Soomaalida Cali Sheekh Cabdullaahi, iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir. wasiirka waxbarashada Soomaaliya wuxuu sidoo kale kulan la qaatay qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata Pakistan, wuxuuna kala hadlay muhiimadda waxbarashada iyo inay ka soo dhalaalaan wixii ay u yimaadeen dalkan. waxay tahay in aad waqti ilowin sababta meeshaan timaado, taasoo ah kow laba saddex afar inaad halka timaadaan wax qabataan aqoontiina ku xisaan aad noloshiina ku bedeshaan markaad aad ka laabataan. taas waa muhiim. intaad meesha joogto waxay la tahay aniga ama meel kastoo aad joogtaan inaad dhaqan fiican la timaadaan oo bini aadan ixtiraam leh, dadkan ixtiraamo, idinkana laga barto wax fiican inaad noqotaan. taasi waa muhiim. taasna waxay u keenaysaa sharaf qof kastoo Soomaaliya. kulankan dhex maray wasiirka waxbarashada Soomaaliya iyo ardayda Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay guriga safiirka Soomaaliya ee Islamabad, waxaana safiirka Soomaaliya Marwa Khadiija ay goobta ka sheegtay in ardayda Soomaaliyeed ay yihiin kuwa nadiif ah oo ka soo dhalaalaha aqoontooda, iyadoo sidoo kale u dardaarantay dadaal iyo dulqaad. macal wasiir waxaa rabaa ardayda Soomaalida dhammaan Pakistan joogto halkan horta waxa u maadan waxbarasho dhammaantood dhanka waxbarashadan aad ay u saayaan. alxamdulilah wadamada kale qaarka oo ardayda xabiso ama jeel ama dhibaatooyin kala geersiis sameeyaan, ardayda Pakistan alxamdulilah waxaas way ka badbaadeen. dad isku xiran oo yaqaano danahooda yihiin. insha allah waxaan rajeynaa mar walba saas inay ku socdaan. qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee kulanka ka soo qayb gashay ayaa wasiirka su'aalo weydiiyey, iyadoo wasiirka iyo mas'uuliyiintii kale ay uga jawaabeen su'aalahooda. Durraan Xasan, Islamabad.